Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada aqoon-doon channel. Haddaad tahay daawado ku cusub channelka, fadlan like saar muuqaalkan, subscribe dhe channelka oo taabo gambaleelka si aad u hesho muuqaal walbo cusub oo aynu soo dhigno. Muuqaalkan waa muuqaal ka duwan muuqaaladii hore. Waxaan rabnaa inaan uga hadalno qaabka ugu fudud ee loo sameeyo qoraalada holcaya ama qaabka ugu fudud ee loo sameeyo qoraal u holcaya sidii dabka oo kale. Balse intaynu guda gelin muuqaalkan, waxaa xusid mudan haddii uu ku soo gaaro muuqaalkan inaad like saarto oo shay aad dhahdo si aad u gaarsiiso asxaabta kale. Haddaad nagu cusub tahayna, fadlan subscribe dheh oo taabo gambaleelka. Haddaba aynu u gudubno qaybteeni practicalka. Ugu horeyn waxaynu soo kicinaynaa software-ka. Software-ka markuu inoo soo kaco waxaa inoo soo bixi doonta shaashad noocan oo kale ah. Waxaad imaanaysaa halkan, kadib waxaad leedahay right click, waxaad ka doorataa new composition. Kadib waxaan magac u bixinaynaa composition-ka. Waxaan isaga bixinaynaa tusaale kale flaming text ama qoraal holcaya. Intaa markaan dhahno, width-ga waxaad ka dhiganaysaa 1920, sidoo kale height-kana waxaad ka dhiganaysaa 1080. Frame-kaagana waxaa ka dhiganaysaa 30. Resolution-kana ha kuu noqdo full. Duration-ka ama xilligana waxaan ka dhiganay 5 seconds. Color-kana waa optional, nooca rabta ayaa ka dhigan kartaa. Intaa markaa samayso waxaad leedahay okay. Kadib waxaan soo dooranaynaa qoraal ama waxaad dooranaysaa calaamada textiga. Waxaad imaataa background-ka dhexdiisa. Kadib waxaa ku qoraysaa tusaale kale waxaad rabtaa ku qoranaysaa, waxaan ku qoraynaa holac. Intaa markaan sameyno, textiga ayaan waxaan keenaynaa dhexda ama center-ka. Waxaad imaanaysaa qaybtan. Kadib waxaad leedahay right click, new, waxaad ka dooranaysaa solid. Kadib magac ayaa u bixinaysaa, waxaad rabtaa ku qori kartaa. Tusaale kale waxaan isaga qoraynaa fire. Waxaad leedahay okay. Intaa markaan sameyno, waxaan dul imaanaynaa layer-ka hadda aan sameynay, annagoo dhihi doona right click. Kadib waxaan tegaynaa effect. Waxaan ka dooranaynaa video copilot. Waxaan kasii dooranaynaa cyber. Intaa markaan sameyno, waxaan imaanaynaa qaybta ay ku qoran tahay customize core. Waad furaysaa. Kadib waxaad soo furaysaa calaamada cyber ay ku qoran tahay. Waxaan ka dooranaynaa text layer. Intaa markaan dhahno text layer aan dul imaanaynaa, waan soo furaynaa. Waxaan ka dooranaynaa holac. Waxaan tegaynaa preset qaybta ay ku qoran tahay. Kadib waad soo furaysaa oo waxaad ka doorataa fire. Intaa markaan dhahno, waxaan tegaynaa qaybta preview-ga. Waxaan sameynaynaa marka hal frame ayaan hore u baxaynaa. Frame-ka hore markaan u baxno, waxaan dib ugu soo noqonaynaa start offset meesha ay ku qoran tahay. Kadib waxaan u dhiibanaynaa time frame. Sidoo kale waxaan ka dooranaynaa meesha eberka waxaan ka dhigaynaa 100. Intaa markaan dhahno, waxaan tegaynaa qaybta ugu dambeysa ee muuqaalkeena uu ku dhamaanayo. Waxaan dib ugu soo noqonaynaa meesha 100 aan ka dhignay oo waxaan dib ugu celinaynaa eber. Kadib muuqaalka ayaan imaanaynaa, waxaan tegaynaa qaybta bilowga. Meeshan full-ka inoo ah waxaan ka dhiganaynaa quarter ama half ama third si uu inoogu fududaado daawashada muuqaalka. Kadib waxaan leenahay run preview. sidaa fudud ayaan u sameynay qoraal u holcaya sidii dabka oo kale. Waan filayaa inaad muuqaalkan ka hesheen kana faa'iideen wax badan. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal ka xiiso badan, waxaan idinkaga tegayaa sidaa in nabadgeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.